السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan tacsiyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan. waxaan kaloon tacsiyo u dirayaa eelkii gabadha Aisha ee ka geeriyootay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariistay. eelka ayaa maanta tacsiyo u diraya waxaan leeyahay sabri iyo iimaan Allah inaga siiyo bedel khayr qaban Allah inaga siiyo. waxaan halka ka cambaaraynayaa oo si xun uga cambaaraynayaa raggii fuxuushnimada aragtay Aisha u geystay baan halka ka cambaaraynayaa oon leeyahay gabadhaad aragtay intay ka zinaysteen 13 jir intay ka zinaysteen iimaanka Allah ka qaaday intay 13 jir ka zinaysteen zinadu waa si kala tahay habada ka zinaystaan ay haddana sii dir dileen oo maarta isha ka bixiyeen isha Allah ka bixiyeen oo dhagti ka gooyeen dhagaha Allah ka gooyeen oo si xun u jir dileen si xun Allah u jir dileen waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta haddaad baxsateen oo adduunyadan aad aragto maanta aad ka baxsato qof ku sheegay oo sii jirin Allah subxaanahu wa ta'aala wax walba arkaba ku arko wallahi naad meel ku baxsaneen waxaan halka ka cambaaraynayaa odayaasha wada dhaqameedka sheeganay ee difaacaya gadaal gelinayo markii wax la kabto dhalinyarada xunta markii wax geystaan gadaal gelinayo difaacayo shalay bay ahayd gudub gabadha aragtay intii laga zinaystay inay baraha social media la soo dhigay inay maaragtay aragtay si xunti loo gal iska daayay oo dhaqameed lagu difaacayo oo dhahay maaragtay plan dheer waxa war waxaas haddaad ka joogo weydaan ma dhibaatoonaysaa haddii shalay gabadha dulgudub raggii saa u galay tiirka la soo istaajin lahaa wallahi waa lagu tusaale qaadan lahaa Aishana maanta dhibka kuma dhaceen kuwa maanta Aisha sidaa u galay waxay aaminsan yihiin bari in la sii daynayo war miyaan war dhibaatada inta la eegayn haysata maxay tahay wallahi musiibada inta la eegayn haysata maxay tahay war musiibo aad u weyn baan haysato wariyaa musiibaan haysato war annagoo ka kor dhiigi iska xalaashanay oo dhiigi iska waxaysanay yaa gabdhahanada yaraa baxsan la 13 jir aan dhalay maanta oo aad dhashay oo dadku dhan ay dhaleen baa baxsan la war miyaana gabar kula dhalanin war miyaana gabar ku dhalin war miyaana hooyo oo maarta aad gabar u dhixi doonin war Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadaanan arinta laga dhiidin oo Aisha cadaaladeeda loo keenin iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed ee maanta cadaalad ka maqan gabdhaheena Soomaaliyeed maanta cadaalad ka maqan hadaan cadaalad loo keenin wallahi musiibaan ugu dhacayso wariyaa waritaan ku aragnay gabadh dhulkeedii joogto oo baxsan la oo banaanka taado adeeg raadin la banaanka ta adeeg u raadsan la oo dhulkeeda ku baxsan la wallahi waa dhibaato aad u weyn war gabdhihii maxay tahay si loo galiyo war cadaalada gabdhaha maxaa dhulka loogu jiidaya markaas waxa lagu leeyahay dib ma laha waa loo guurin doonaa dib ma laha war waxaas horaan bay nagu dhacday war naga daayo waxa horaan bay nagu dhacday naga daayo haddaanan cadaalad Aisha loo keenin oo ragga tiirka la soo istaajinin oonan maarta ragga la dilin oo mudankooda la marsiinin hadday 8 ahaayeen iyo hadday 5 ahaayeen iyo hadday 7 ahaayeen sharciga islaamka wuxuu sheegayaa haddii ay wada jir ku dileen in la toogto kulligoodba 7 hadday ahaan 7 la toogto ayuu la sheegayaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu hadda ka hor baa waxa la dilay wiil yar baa wuxuu diray niman soo islaamay baa wiil yar dileen markaas waxay dhaheen waana xanuunsanahay waxaan u baahanahay bay dhaheen maartay xanuun baanahay inuu ducee markaas uu dhahay maartay caanihi geela wuxuu yiri kaadida geel u diray uu yiri maartay taga wiil geel la joogay intay dileen iyo geelina ka qaateen markaasuu intuu ka daba tagay oo uu rag u diray baa la keenay oo la dilay markaas wuxuu yiri wallahi ilaahay baan ku dhaartay sanco dhan haday dili lahaayeen inaan dili lahaay buu yiri marka haday 7 yihiin waa 7dood in loo dilo haduu hal yahay waa in halkiisa loo dilo hadii Aisha xaqeeda aan la siinin wallahi musiiba noo iman doonto waxaan halkan maartay tacsiyo uga direeyaa hadda mar labaad ehelkii ay ka geeriyootay Aisha ee gabdhahanadii maartay intii la kufsado haddana bari kii cunada xumaa ee stupidka intuu kufsaday gadaal gelinayo war odayaal waxa naga daaya oo gabdhahanadii guriyooda ku baxsan laayeen oo waxbarashada aadi laayeen oo adeegi bay aadi laayeen war gabdhahanada way dhibaatoodeen cadaaladoodii aaway cadaaladooda xagee aaday war gabdhahanada in cadaalad loo helo war gabdhahanada cadaalad hadaan loo helin dhibaato dhacayso ilaahayna waan dhibaataynaya musiibana nagu dhacayso war in gabdhahanada cadaalad loo helo waa yaa gabdhahanada in cadaalad loo helo waa gabadha ninkii gabar wax u geysto hadii maartay la ciqaabi lahaa waxaan aaminsanahay aniga inaana gabar dambe aan lagu dhiiradeen in wax loo geysto war dhulkan aan joogno wadankan aan joogno wallahi billahi wadamadan aan joogno waraa wadamadan aan joogno gabdhihii fasti baa laga dhigay waxa fasti looga dhigay in gabdhaha dulmi aan loo geysanin baa fasti looga dhigay oo la dhibaataynin baa looga dhigay annagana markaas aan gabdhaheena dhibaataynayna oo gabdhaheena dulminayna oo gabdhaheena dhibaato maartay aan jirdilayna oo gabdhaheena si sahlan ku kufsanayna haddaan arinta laga soo jeedsanin oo arinta laga dhiidinin oo gabdhaha xaqooda la siinin wax Ilaahay abuurto oo kala soconaya inuu si jiro
إلهي سبحانه وتعالى أنا يا سماد إنه عذاب ناقص تورا هالسا عذاب إنه سماد ناقص تورا هالسا قبلها وين حق هذا هلان قبلها وين حق هذا الله سير قبل جورج إذا ما أنت جوكتين بحسن لا كاجو أديك راتسن لا ورقبل جورج إذا كوب بحسن لا كورها وريها قبل جورج إذا كوب بحسن لا حقيقة بحسن لسا ورقبل جورج إذا كوب بحسن لا حقيقة بحسن لسا ورعنو جاك حكا هذا العشون ويدو والده عنو جاك حكا هذا العشون ويدو والله بالله تالله ما ركتي دبعتها هي مصيبة كوي مانيسو امتحان الله أنا كوي مانيو عنو جاك حكا وين العشتان والدك واحد علي وإلمه هذا وين الله صعدان لأن يرد وحوجيسو والد بعد علي وين والدك الله صعده وين والدك تربية عنك تربية سو حما بحوجة بقى وعنك أن تربية سنة وأخلاقك كبلته ورقبتها من العدالة الله سيو قبلها عدالة الله هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.